أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. ما أنت وحن قادننا حلقة أفراد برنامج كيني How to Influence People. dadka sideen u saameeya waxyaalaha dadka lagu saameeyo waxa kamid ah al-mujaamala qofka inaad maxay aad u qorxisid maanta waad dareemi kartaa xaaskaaga markaad u imaado hadaad tiraado maanta dhar fiican ayaa ku xiran siday u farxiso dad yow fara badan aad iyo aad oo waxa jira Abu Sufyaan oo macnaha jecel faanka qofka saaxiibka markuu computerkiisa uu aad iyo aad u jecel yahay oo mar walba computerkiisa uu amaano hadaad adigana u timaado aad computerkiisa u amaato computer VIP soo gadatay computerka kaligiis diyaarada lagu soo qaaday aad iyo aad ayuu ku jeclaanayaa saaxiibka haduu jecel yahay kubadda inuu aad iyo aad u ciyaaro ee markuu ciyaarayo inuu gool badan inuu dhaliyo hadaad ku tiraahdid ما شاء الله goolashaada marka dhalinaysa aad iyo aad u jeclahay si yaro qorofan oo macaan ayaad soo laada kubada wuxuu dareemayaa jacayl aad iyo aad u weyn mujaamalada waxay ka qaadagtaa inaad qofkii saameyso saameyn xoog leh bilba aad ku yeelato qofka aad rabtid inaad wax ka qaadid ya waxa loola dhaqmaa sidoo asaga yahay adiga sidaa tahay ayaa qofkana loo qaataa waxaad adiga jeceshahay ayaa qofka kalena inuu yahay loo fiiriyaa tusaale ahaan adiga hadaad neceb tahay in dadka oo lagu hooriyo markay wax sameeyaan adigana waxa laga rabaa dadka kale inaad sidaas ka soo qaadid aad ka ilaalisid iidaa'u naas dadka inaad dhibtidna waa dhibaato weyn marka mujaamalada ayaa mar walba karoon inaad qofka u qurxisid saaxiibka marka uu og tahay inuu jecel yahay jiimka oo mar walba muruqiisa asagoo sidaan dhahayo soo sawiraayo haddaan maalin walba markaa u imaado muruqiisa oo ma sha Allah maanta muruqa waxa ku kordhay aad iyo aad ayuu maxay u farxayaa xaaskaaga haddii ay jeceshahay in oo dhuubnaato oo khaliir noqoto oo buurneen oo maalin walba hadaad ku tiraado ma sha Allah miisaan ayaa ka go'ay waan dareemayaa hadaad tiraahdo aad iyo aad ayay ku sii jeclaanaysaa qofka mujaamalada marka u sameeysid mar walba marka ka dambeeyo uu sii jeclaanaya waxa hubaala qof wuxuu leeyahay Ibrahim al-Fiqi marka shaqada soo gasho qofka ka soo horbaxaba saddex kalmad oo mujaamala u sameey maalin walba hada sameeysid dadka shaqada joogo dhan way ku jeclaanayaan tusaale ahaan waan soo galay ilbaabka igu horeeyay markaan soo galabo qofka igu horeeyay maadaba aan iraado dharka maanta aad soo galshatay waa dharka ugu quruxda badan oo kiyaalaha aad xiran tahay ama muraayada maanta aad iyo aad waa VIP aad iyo aad u la dhacay hada siineed waa jeclaan lahaa taasi wax weyn waa mujaamala weyn oo meel fiican kaga fadhiisanayso qofka walaalka aabaha reerkaaga kulli markaad soo gasho hadaad mujaamala ninkaas u sameeysid oo ma sha Allah maanta aad iyo aad u qurux badan tahay si fiican ay la muuqata wajiga hurud ayaad marsataan u maleena iyadoo waxba marsan hadaad tiraado hurdina marsatay ama is qurxisay ama wax kale marsataan u maleena maanta wajiga uu isbedelay aad iyo aad ku jeclaanaysaa dabcan walaalka maalin walba hadaad dhiirigelisid oo ku dhiirigelisid waxa uu qabanayo aad ku tiraado ma sha Allah waxaan aad iyo aad u qurux badan yahay mujaamala qofka inaad wax walba aad u qurxisid waxay qayb qaadanaysaa soo jiidashada qofka waa shay aad iyo aad u sixir badan oo dadka aad ku soo jiidan kartid al-mujaamala qof kasta u qurxi waxa uu haysto walaalka waalidiinta iyo dadka oo dhan si aad u soo jiidato aad iyo aad u maasantiin. Assalaamu alaykum.